بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa khayrka inuu nagu kulmiyo wada joogeenna iyo kadibna uu ina xifdiyo, ina badbaadiyo diin iyo dunyaba. dabcan dhammaanteen bisha waa sugaynaa, ilaahay nabada inagu gaarhsiiyo, khayrkeedana iyo camalkeedana allah ina waafajiyo. masalada qur-aanka iyo qur-aanka kariimka ah iyo bisha ramadaan waxaa ka dhexeeya xiriir gaara oo mudan in mudnaantiisa la siiyo, dadaalkiisana lagu bixiyo. aan dhowr qodob ka soo qaado tilmaamood iyo nusuusta sharciga oo tilmaamaysa sida xiriirka gaarka uga dhexeeyo bisha ramadaan iyo kitaabka ilaahi ee qur-aanka ah. ramadaankuna sideeday fadli gaara u leedahay, qur-aankuna sidiisuu fadli gaara u leeyahay oon ramadaan ku xirnayn. waxaa kelimadeeda ay ku saabsan tahay laakiin waa halka ay isaga yimaadaan iyo inta ay wadaagaan qaybo ka mida. waxaa koobaad ee asaaska u ah in ilaahi subxaana wa tacaala isu doortay in kitaabkiisa uu soo dejiyo bisha ramadaan. bisha ramadaan ilahi inuu soo dejiyeyna markii soomka ramadaanka inaan soonna layna farayey, aayaadka laynagu faray suuratu lbaqara waxaa ka mid ah qowluhu tacaala: shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum. bishii in la soomana waa laysamray, waxaana hordhac iyo gogolxaadh looga dhigay in kitaabkan qur-aankii waxyiga ilaahaya bishaa la soo dejiyey, qur-aankaasna hanuun iyo xaq iyo baatilka oo la kala caddeeyo uu xambaarsan yahay. daba kitaabka qiimaha badan ee ilaahay xifdiyey, ummadda hanuunkeeda loogu talagalay, ilaahay ummaddan inuu nabigu gaadhsiiye ugu talagalay sala allahu alayh alih wasalam, isagaana wixii mugdi ka gala inuu sharxo bayaaniyo oo la yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh. kitaabkaas ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ku tilmaamay in wax walba lagu sheegay si guud ama si dadban ama si toosa ama si gaara. waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan. bisha ramadaan weliba waxaa laga soo dejiyey habeenka ugu fadliga badan oo innaa anzalnaahu fii leylati alqadr. leylatu lqadrigaan soo dejinnay oo fadligiisu ka khayr badan min 1000 shahr, 280 sano iyo weliba bilo ka fadli badan qofkaan la waafajin. bisha ramadaan baa la soo dejiyey, tobanka dambaana la soo dejiyey ee leylatulqadriga ay ku jirto. habeenada tirada isdheera hadba si loo tiriyo loo xisaababa. habeenkaas qur-aanka la soo dejiyey ee bisha ramadaan ka mida waxaa kaloo uu leeyahay sida ilaahay ku sheegay: innaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin innaa kunna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina innaa kunna mursiliin. waa habeenka howl sanadeedka ambiyada loo qaybiyo, malaa'igtan leeyahay sanadka waxay qaban lahaayeen, xukunka ilaahay ay fulinayaanna xog iyo wargelin lagu siiyo. waa habeenka u fadli badan, waa habeen tobanka dambe bisha ramadaan ka mida. habeenkaasoo qur-aanku soo degay. markii halkaa laga hadlayo laba arrimood aan baraarujiyo oo degitaanka la xiriira. midda koobaadi, ma qur-aanka keliya bisha ramadaan soo degay mise kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhan ambiyadii hore xataa bisha ramadaan bay ahaayeen.
xadiid waxaa jira min xadiidi waathirata bn اlasqac radia allahu canhu wa ardaah fii musnad اlimaami axmed iyo mucjam الطabaraani اlkabiir iyo tafsiirka طabari iyo keyrkood rag kale ay wariyeen xadiiskaasoo oranaya nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi kowda bisha ramadaan yaa suxuufu ibraahim la soo dejiyey habeenkii u horreeyey bisha ramadaan ay kow ahayd towraadna waxaa la soo dejiyey 6 habeen kadib markay 6 beri tagtay yaa la soo dejiyey daahirka waxay og tahay 7dii wuu soo degay injiilna markay 13 tagtay ayaa la soo dejiyey oo u muuqata 14kii zabuurna markay 18 tagtay ayaa la soo dejiyey oo ilaa 19 u muuqata qur-aankana markay 24 tagtay ayaa la soo dejiyey oo ay culimmada qaar u daliishadeen 25ku inay tahay leylatulqadriga xadiidkaa nabiga laga wariyey sala allahu alayh ali wasalam culimmada qaar waa sugan yahayoo xadiid xasana wayay leeyihiin qaarna waa daciifinayaan nuxurka isqabadka iyo kala duwanaanshuhuna waa nin ruwaadda ka mid oo cimraan alqataan la yidhaahdo xadiidkiisu xasan miyaa mise wuu ka hooseeya bas maandhaaf culimmada dhexdooda ka jira ninka xaaladiisu waxay ahayd miyaa sababaya xadiidkaasi say culimo badan qabaan waa xadiid xasan oo sugan haddii la yidhaahdo qur-aanka keliya ma ahane intii kutub ilaahay soo dejiyey oo towraad leh oo injiil leh oo zabuur leh oo suxufu ibraahim leh bisha ramadaan bay soo degtay hadday bisha ramadaan soo wada degeen qur-aanka ugu muhiimsan oo naasikhii kutubta dhamma gebagabeeyey ahaa kutubtii horeo dhanba waxyiga ilaahay ee uu kutubta ku soo dejiyey ambiyada ku soo dejiyey iyo bisha ramadaan xiriir gaara ka dhexeeya wey saa darteed waxyiga ilaahay iyo kitaabka qur-aanka oo kutubtii o dhan soo khatimay ilaahayna uu ka dhigay wamuhayminan calayhi mid wada camimayo isagu wada xukumaya oo wixii uu yidhaahdo inuu yahay hadda wixii gabagabadii iyo gunaanadka ahaa bisha ramadaan buu soo degay masalada labaad aayaddan waxay noo sheegeen aayaadka waxay noo sheegeen shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan ina anzalnaahu fii leylati alqadr ina anzalnaahu fii leylatin mubaaraka soo degitaanka aayaadka waxaa laga fahmayaa qur-aanku hal mar inuu soo degay laakiin aayad kale oo qur-aana waxay noo sheegayaan inuu in yar u soo degay qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukth wanazalnaahu tanziila qur-aan baan kugu soo dejinnay aanu qaybinnay oo soo degitaankiisii aan kala googoynay si tartiiba si aad dadka in yarin yar ugu akhrido iyaguna u fahmaan fii suurati alisraa wey fii suurati alfurqaanna wa qaaluu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabita bihi fuhaadaka waratalnaahu tartiila waxay yidhaahdeen ma hal mar la soo dejiya qur-aankan marba in yar imanaysa muxuu yahay aayaadka waxay caddeeyeen qur-aanku yarin yar buu u soo degay kuwana waxay caddeeyeen daahirkooda marka la duuduubo qur-aanku hal mar inuu soo degay bay tilmaamayaan ama la soo dejiyey bisha leylatulqadriga 20 sanana soo degitaanku uu socday sidee baa la isu waafajinaya labadaa macno maxay kala tilmaamayaan culimmadu isku dayo badan baa jiray si la isu waafajinayo laba ugu mashhuursan intaan xasuusto midna waa ahar ibni cabaas ka sugan midna waa ahar camr ibni sharaaxiil ishacbi ka sugan culimmaduna aharka ibni cabaas bay u badan yihiin inuu yahay sida saxda qur-aanku bisha ramadaan iyo leylatulqadriga ayaa lawxulmaxfuudka laga soo dejiyey samaa-u dunyaa meel ahna la keenay taasi waa midda ay tilmaamayaan shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu ina anzalnaahu fii leylati alqadr ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka soo dejintaa duuduuban ee lawxulmaxfuudkana laga keenay samaa-u dunyaana la keenay weeye inta ay sheegayaan oo leylatulqadriga oo ramadaan ay ahayd tan faahfaahsanna dadka kala qur'aanan faraqnaahu iyo aayaadka lamidka ahna kusoo degitaankii nabiga ay tilmaamayaan sala allahu calayh waalih wasalam sidaas waa sida aharka ibni cabaas ah culimmaduna u badan yihiin qowlka shacbi wuxuu odhanayaa waxaa looga jeedaa waxaa bilowday soo degitaankii qur-aanka baa leylatulqadriga bilowday oo bisha ramadaana saasuu odhanaya marka aayaadka wuu soo degay wuu bilowday baa laga wadaa buu yidhi
laakiin ahlu siyar wataariikh iyo maqaasidu jamaahiirtooda waxay u badan yihiin nusuulul waxyigu ramadaan waa ahaa laakiin 17 bay intooda badan yidhaahdaan dabcan 17 laylatulqadrigu maahane 10 dambey ku jirtaa cala alqowli asaxiix labadaa qowl baa loo badan yahay kan jamhuurta ibnu cabaas ka sugan baana mudan oo u dhow towfiiq iyo waafajinta laakiin kuwa kaa iyo kuwo kalena waa jiraan halkaas su-aal baa iman karta la yidhaahdo qur-aanka garanay xikmadda ku jirta in yari yar inuu u soo dego nabiga ugu yimaado sala allahu alayh ali wasalam ummadana ku soo gaaro qur-aankaaba ilaahay ku sheegay litaqra'uhu cala annaasi calaa muksin maxay tahay xikmadda ku jirta in hal mar lawxulmaxfuudka laga keenay oo samaa-u dunyaa la keenay badrudiin izarkashi alburhaan fii culuumi lqur'aan markuu masaladaa ka hadlay wuxuu leeyahy xikmaddu waa dadka ahlu dunya ah waa loogu talagalay in yani yarna ugu soo dego laakiin middaa hore ahlu samaawaat baa lagu ogeysiinayay maadaama uu meesha samaa-u dunyaa ku yaal beydkay malaa'igtu tawaafaysay maalin walba 70 kun oon ku soo laabanaynin ahlu samaawaadka iyo malaa'igtaa la ogeysiinayey in la soo dejiyo os bilaabanayo kitaabkii kutubta iyo khatimayey iyo rasuulkii rasusha khatimayay ahlu samaawaadka wargelin iyo wanaag iyo qiimihiisa habeenkan ay yaqiineen loogu tilmaamayey oo lagu tusinayay inta aayar inuu soo degana xikmadda ku jirta ahlul ardiga iyo dadka insi iyo jinniga ee mukalafiinta ee nabiga loo soo diray sala allahu alayh alih wasalam ayaa iyagana xikmaddu ku jirta in loo yaryareeyo intaas hadalka ila taraare waxaanu nisiri ama in ay habboon tahay in la raaciye masaladii hore haddaan dib ugu soo noqdaay qur-aanka iyo bisha ramadaan waxaa ka dhexeeya in ilaahay isaga soo dejiyey xataa calaa qowli shacbi bil ramadaan buu bilowday oo 17 ramadaan ba ahayd buu leeyahay xilliga waxyiga jibriil uu u yimid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo joogo oo u dhijiray iqra isna yiri maana biqaari ilaa aakhirkii xadiidkii ay soo degtay iqra bismi rabbika alladii khalaq khalaqa al-insaana min calaq iqra rabbuka al-akram alladii callama bilqalam callama al-insaana maa lam yaclam taasi waa astaanta koobaad astaanta labaad nabigeenu sala allahu alayh ali wasalam bisha ramadaan camal ahaan qur-aanka dib u akhrin ahaan qur-aanka in laga dhagaystaayey bisha ramadaan bay ahaan jirtay fi saxiixayn xadiidka ibni cabaas radia allahu canhuma wa ardaahuma waa kiilaha nabiga markuu tilmaamayay sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu kaana ajwad annaas wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil baa bisha ramadaan u iman jiray fayudaarisuhu lqur'aan qur-aanku la akhrin jiray bisha ramadaan sanad waliba marka bisha ramadaan la gaaro jibriil baa nabiga u iman jiray sala allahu alayh wasalam qur-aanku la akhrin jirayoo la meerin jiray qur-aankay wada dhammayn jireen markii la gaaray sanadkii ugu dambeysay nabiga sala allahu alayh ali wasalam 2 jeer buu la dhameeyey qur-aanka jibriil nabiga sala allahu alay wasalam halkaana astaan waxay u tahay sayidulbashar iyo sayidulmalaa'ika yaa bisha ramadaan qur-aanka wada akhrin jiray bisha ramadaan bay wada dhammayn jireen bisha ramadaan yay wada muraajacayn jireen halka waxaad ka garatay waxa isu keenay sayidulmalaa'ika oo jibriilah iyo sayidulbashar oo nabi maxamed sala allahu alayh wasalam nabigii waxyuu ku soo degayey iyo malagii waxyiga qur-aanka keenayey labadoodii bisha ramadaan bay dib u wada akhrin jireen oo iska dhagaysan jireen oo muraajacayn jireen sanadkii gunaanadkii iyo gabagabadii geerida nabiga alay slam wax yar ka hor ahaana 2 jeer bay ku celiyeen halka waxaad ka garatay bisha ramadaan ha soo dega keliya ma aha ma ha bilowda midna keliya ma ahane si joogta ah baa qur-aanka nabiga iyo jibriil calayhim asalaatu wasalaam ay wada akhrin jireen halkaana waa arrin tilmaamaysa bisha ramadaan si gaara qur-aanka in loo aqriyo in loogu dadaalo wixii kaa sax khaldamay la iska saxo in si gaara loo badiyo akhriskiisaay ahlul khayrku inay isugu yimaadaan qur-aanka akhriskiisa in loo baahan yahay dhinaca kale marka laga eego nabigu sala allahu alayh ali wasalam si guud ahaaneed qur-aanka in lagu istaago oo salaad lagu tukado oo habeenkii la akhriyo aad baa loo ammaanay guud ahaan gaar ahaan bisha ramadaan oo nabigu alayh salaam markuu ku boorinayey man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih alla rumayn iyo ajirdoon qofkii qiyaamu leyl
iyo salaad badan u tukada ramadaanka dembigiisii horena waa la dhaafayaa iyo midka dambeba laba. dembiga waxaa lagu dhaafayo dabcan dee curfiga sharcigu markii qiyaamu leyl laga hadlo waa soo jeed iyo salaad la tukanaya asaas u ah. salaadana waxaa lagu tukanayaa waa qur-aankii. faatixadu marka la dhammeeyo waxaa ka dambeeya la aqrinayo waa qur-aan badan. saa darteed baa nabigu alai slat slam habeenadii lagu daba tukaday ee uu tukanaya taraawiixda waa kii qur-aanka dheereeyey ilaa habeenkii dambe ay yidhahdeen saxaabadu xataa khashiyana alfalaax ilaa mama alfalaax qaaluu asaxuur suxuurtu inayna dhaafto waagu nagaga baryaaban ka yaabnay. camal ahaanna waa u sameeyey inuu qiyaam dheer ku sameeyo guud ahaan ramadaanka gaar ahaan 10ka dambana in qur-aanka salaada habeenkii aada loogu akriyo waa ku dhiirigeliyey nabiga sala allahu alay wasalam. saa darteed buu nabigu markuu isbarbar dhigay oo sheegay waxa ay wadaagaan oo faa'iidada aakhira ah soomka iyo ramadaanka yaa wuxuu yihi alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani. qur-aanka iyo soonkaba aakhara marka la tago way shafaaco qaadayaan. soonku wuxuu dhahayaa rabbiyow maalintii baan oon iyo gaajo ku dilayoo cunadii iyo cabbitaankii baan u diiday. qur-aankana waa soo istaago rabbiyow anna habeenkii yaan hurdada u diiday. labadoodu way shafaaco qaadayaan. midna maalintii raadkii uu ku lahaa qofku ka hadlayaa, midna habeenkeedii raadkuu ku lahaabuu ka hadlayaa. xiriirintaa la xiriiriyey ee midna maalintii yahay midna habeenkii iyo qiyaamkii calaaqad macnaha ka dhaxayso mudan dadku inay tixgelinteeda siiyaan oo qur-aankii suu kugu shafaaco qaado markaad maalintii sooman tahay habeenkiina salaad inaad ku soo jeeda loo baahan yahay. gunaanadku wakhtigoo gaaban dartii waxaa ku soo gunaanadayaa muslimiintu isagoo hanuunkii nabiga calai salatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay tacliintii ay ka barteen laga dhexlayo xilligaa laga soo bilaabo ilaa maalinka aan joognaayey marka bisha ramadaan soo gasho ama maalin ha noqoto ama habeen ha noqoto ama salaada ha noqoto ama fadhi ha noqotee qur-aanka si gaara in loo akhriyo oo salaadaha lagu khatimo oo 10ka dambe lagu laba goor celiyo oo qofku intaasoo jeer uu dhammeeyo fursaddan iyo jaaniskan shayaadiintu xirxiran yihiin waa sunno ay muslimiintu kala dhexleen xilligii nabiga laga soo bilaabo sal slam ilaa xilligaa maanta aynu joogno. hadiga kitaabka iyo sunnada ah ayna bareenna waa midda raadkaa muuqda. inaguba inagoo yaryar inteennan qof waliba maalinka uu yaraa ee caqliyaystay dadkoo muslimkaoo bisha ramadaan qur-aanka dadaal gaara ku bixinaya oo si gaara loo akhrinayo oo si gaara loogu tukanayo baynu indhaha kusoo kala qaadnay. sidaa un baynan insha allahu inaguna kaga dhiman doonaa. jiilka iyo quruuntii naga dambaysana inta ilaahay doono saan bay ku socon doonaan. marka waa camal iyo dhaqan wanaagsan oo ay muslimiintu salafan can khalafin kala dhexleen way. arrintaasina ilaahay inuu waafajiyo saa sunno loo kala dhexlaay oo laysku wada dhiirigeliyo weligeedii kama imanin bilaash. intaa guud baan kaga tegayaayo dee tafaasiisha hoose iyo a'imadii muslimiinta marka laga sheekeeyo wax badanood is leedahay say ku suurageli karaan. 60 jeer buu qur-aanka bisha ramadaan dhammaynayay jiray maalintii 5 jeer buu khatimi jiray qur-aanka iyo waxyaaba aad dhici kar is leedahay say ku dhici kartaa baa laga sheekayn. tafaasiisha iyo faahfaahinta lama ege waxaa laga qaataa nuxurka gunaanadka ah si aad u fara badan oo gaara baa si guud oo salaada iyo si gaargaaraba qur-aanka loogu dadaali jiray akhriskiisana loo badin jiray. intaa weeye nuxurka gunaanadka qaadashadiisa leh. sidaa maan rajaynaya inaan ku dadaallo ilaahayna hayna waafajiyo. waxaan idinku dheereeyey raalli ahaada. hadal waxaa la yidhi qof badiyeyna ma wada dhihin, qof soo gaabiyeyna kama wada tegin. jazaakum allahu khayran. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.